wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Professor Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir oo socdaal dhanka hawada maalinimadii shalay ku soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ujeedka socdaalkiisu ah u kurgelida xaaladda abaareed oo meel adag maraysa iyo sidoo kale wax ka qabashada xaaladaasi adag ay ku sugan yihiin deegaano badan oo hoos yimaada gobolka Sool. wasiirka oo shir jaraa'id ku qabtay maanta hooyga uu ka degay magaalada Laascaanood ayaa uu kaga hadlay xaaladda colaadeed ee muddada soo jirtay ee ka jirta koonfurta gobolka Sool isagoona kulamo la qaatay guddiga culimada diinka ee muddooyinkii ugu dambeeyay gacanta ku hayay dhexdhexaadinta labadaasi beelood ee walaalaha abaaraha iyo gurmadka loogu jiro dadka badbaadintiisa iyo dad iyo dunyaba iyo wixii dadka hadda waqtigan adag lagu badbaadin karo wax laga qaban karo inaan arrimaha u koorgalo iyadoo ay soo bilaabantay mucaawanooyin iyo waxyaalaha caalamka ka imaanayana ogaa taakulooyinna in maxayto bal sidii loo nidaamin lahaa ee dadka loo gaarsiin lahaa la iska wacyigeliyo oo gudiyada gobolka iyo odayaasha dadweynaha iyo guud ahaanba sidii looga wada tashan lahaa xaaladda nabadgelyo xumo iyo colaadaha gobolka ka taagan ee dadkiisa dhex yaala ee aad ogtihiin muddada badan socday bal sidii mar kale la isugu dayi lahaa in arrimaha la qaboojiyo oo colaada la soo afjaro oo wixii colaadaas laga qaban karaba laga qabto ayaan ugu imi waana u joogayaa muddo waana dowlad iyo bulshada deegaankan iyo intii looga maarmayn bana waa la kaashanayaa. wasiirka oo warfiniyaanadu ay su'aalo ka weydiiyeen colaadda koonfurta gobolka Sool ee soo jiitamaysay muddada ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliland ay ku kala dhex jiraan. wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisii kamid ahaa sida tan insaas sheegtay colaadda ay muddo badan soo jiitamisay oo muddooyin badan aad moodid in la fashiliyay waxa kale oo jirta in ciidamo labada beelood ay Soomaaliland u qarameysay oo mushahariyo ay hubba siiso meel la oran karin xukuumadda qudheeda qayb ka qaadanaysa in colaadda beelaha sii socoto. dowladda Soomaaliland hub ma siiso reeraha hubkooda wixii u diyaar ah ayay u qaramaysaa oo ciidamada si nabadgelyadu u waarto oo nabadgelyadu u jirto xasiloonida dadka dhexdooda ay u ilaaliso wixii u diyaara ee aan markaa iyagu doonaya inay nabad xasiloonida nabadda wax ka qayb qaataan ayaa baa loo qarameeyaa ciidamadooda laakiin hub lama siiyo la isugumana dhiibo. wasiir shirkii lagu dhaarinayay odayaasha kan hore xukuumaddu qabatay waxaa ku sheegteen inaad nabadaad kala kaashanaysaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Puntland oo dariskiina iyo Soomaaliland xukuumaddiina iyo intiiba gacan ka qaadan doontaan dhulka colaadda hadda ka dhacaysa kusoo noqonaysa inta badan wuxuu dhacaa xadka Itoobiya dhacaa dowladda Itoobiya xiriir nooc ka dhaxeeyo ku aadan colaadda si loo hakiyo. dowladda Itoobiya waa ka wada soconaa iminka hawshan iyada ah nabadaas arinta in deegaanka nabad laga dhaliyo waa ka wada soconaa qorshayaal iyo ballanaanu ka leenahay. leeyahay dagaalkan Soomaaliland qaboojintiisa inaan daacad ka ahayn marka arintaasna la oran karin waxa ka jira intii laga qabtay dagaaladii ceelf way ka dhacay iyo beerihii halka dagaaladu ku xmareen intii laga qabtay iyo in ka badan oo 3 jibaar 4 jibaar waa laga qabtay ciidamada waa la geeyay intii hawlgal ahayd ee la galay halka laga galay in kuwa lamida ama ka badan baa la galay deegaanadaas dawladdu awaamirtii ay soo saartay sharciyadii ay u kala dhigtay iyo wixii talaabooyin laga qaaday bay u hoggaansameen oo ku dhaqmeen waa halka ka tagful oo ku dhaqmi waaye iyagu baana u arkayaa inay sababta leeyihiin in madax dhaqameed ku jiro waxaa loo ognahay in siyaasiyiin ku jirto dad badan oo deegaankan u dhashay inaanay arrinta daacad ka ahayn ama ay hurinayaan ama ay fashilinayaan iyadu mid beeran ma aha oo iyaga qurba joogga ku jira dad badan oo mataqaana deegaankan u dhashay oo meel walba joogo oo arrinta ka daacad ahayn baa aaminsanahay haddii siduu isagu u jeeday ma aqaan laakiin anigu u dadkaygu dhinacayga waa ka aaminsanahay arrimahaas in wax ka jiraan maxaa laakiin mid baa been ah oo maxaa aan raad lahayn oo in lagu eedeeyo inaan Soomaaliland daacad ka ahayn ama dawladdu ay fashilinayso arrintaas waa mid iyadu wax kaba jiraan mar walba arrintaa waa ka daacad bay laakiin wixii ka khaldama iyo haddii la majara habaabiyo iyo haddii ay sidii la rabay wax u dhici waayaan anu waxaan qabaa dadka deegaankan u dhashay wuxuu doona ha ahaade ayuun baa eedeeda aan saaraya. Samiir Saciid Bilab
bulsha TV laascanood.